ciidamada dawladda Soomaaliya ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo iskaashanaya ayaa shalay gelinkii dambe waxa ay deegaanka Araare oo kaabiga ku haya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose ay kula direen koox ka tirsan argagixisada Al-Shabaab oo halkaasi ku dhuumaalaysanayay dagaal kooban oo goobtaasi ka dhacay waxa ka firxaday kooxdii argagixisada Al-Shabaab ee halkaasi isku urursanayay ciidanku waxa ay ka dileen laba kamid ah askartii kooxdaasi oo goobta ku sugnayd iyadoo ay ka soo qabsadeen hubkoodii intaasi kadib daqiiqado kooban kadib ciidankii Al-Shabaab ee ka firxaday goobta oo isku urursanayay goob aan ka fogeyn deegaanka Araare ee kaabiga ku haya degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose waxa ay la kulmeen duqeyn xagga cirka afhayeenka laamaha amniga ee Jubbaland mudane Cabdinuur ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab duqeymahaasi iyo weerarkaasi lagaga dilay in ku dhow 30 askartooda ah iyadoo halkaasi ay ku burbureen gaadiid ay wateen iyo sidoo kale saanad ciidan ciidamada Jubbaland ayaa waayadan waxa ay wadeen howlgallo ballaaran oo ay ku baacsanayaan kooxda argagixisada Al-Shabaab waxaan ogsoonahay in bishii aanu ka soo gudubnay January duqeyn ka dhacday deegaanka Araare ku dhow ay ku geeriyoodeen in ka badan 70 askarta Al-Shabaab oo lagu beegsaday weerar duqeyna oo xagga cirka ay ka sameeyeen ciidamada Maraykanka afhayeenka laamaha amniga dawladda Jubbaland ayaa waxa uu ka warramaya howlgalladii u dambeeyay ee ka dhacay deegaanada kaabiga ku haya degmada Jamaame waxaan rabaa halkan inaan faahfaahin ka bixiyo howlgallo ilaa taariikh 8 maanta ee ka socday area Mise xaaji Araare koban oo ay qaadeen ciidamada dawladda goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka qaybta 43aad halka oo ay ku burburiyeen fariisimo ay ku lahaayeen kooxaha khawaarijta ee gacabka ah ay dadka Soomaaliyeed ku dhibaateynayeen alxamdulillah ciidamada hubinta ee dawladda goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka waxay ka gaareen guulo aan sheeg inaba caadi ma sha Allah alxamdulillah rabbil alamin waa lagu sii daba taagan yahay ciidamadii wali waxay ku jiraan howlgalkoodii kooxihii ayayna baacsanayaan kooxaha khawaarijta xalab maqribkii markay ahayd salaada maqrib markii laga baxay kadib ayaa waxa lagu weeraray goob ay ku diyaarinayeen dhagarta ama dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ayadoo xog buuxda laga hayo ciidamada dawladda goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka ayaa weeraray meesha ay ahayd dad badan ayay nagu laayeen geerida inta hadda la xaqiijiyay kooxaha khawaarijta ka dhimatay waa 25 hubna waa laga soo furtay meedna waa laga soo qabtay ilaa haddana wali waa la daba taagan yahay meesha markii hore dagaal xoogan baa ka dhacay nimanka waa meel fariismo u ah oo ay dhagar ku mareegayeen bay ahayd ciidamada ayaa ku weeraray halka alxamdulillah halka gacan xoogan ayaa lagu gaarsiiyay dhibaato ayaana ka gaartay kadibna duqeymo ayaa looga daray marka dhibaato zaid u weyn ayaa isugu tagtay duqeyntii iyo weerarkii howlgallada ka socda dhanka waqooyi ee magaalada Kismaayo Jamaame Kismaayo eerida u dhaxayso waa howlgalladii uu ku baaqay madaxweynaha dawladda goboleedka Jubbaland bishii la soo dhaafay howlgalladan waxay u socdaan si dardar leh ujeedada laga leeyahayna waxa waaye in lagu xoreeyo deegaanada kooxaha khawaarijta ay ku dhuumaalaysanayaan shacabka Soomaaliyeed ay ku dhibaateynayaan ujeedada laga leeyahay marka waxa weeye in dadka laga qabto dadka Soomaaliyeed dhibaatada ku hayaan insha Allah bidina kareem in guul laga gaarana waa rajaynayaa Ilaahay Ahmed Maxamuud Jaamac Jubbaland TV Barsanguni